بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قدرنتي قيمها مدن برتان نقل سعوتان وقلبيت تي في حرونتيسا ادمنتون دالك كندا ان كسو دوادا داوديال عاو برنامج كينا وارونتي ميدان كغهدلنو guusha iyo hambaliyooyin fara badan iyo runtii falaqayn yar oo siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya caaw waxa studio-ga la fadhinaa runtii ku soo casuunay waa mudane Umar Maxamed ku soo dhawow Galbeed TV wanda way aad iyo aad baad maasan tahay gabadha Galbeed TV iyo adiga waad baadin salaamaya wanda way adiga mudan waana kaaga mahad celinaa waqtigaaga muhiimka runtii aad noo hurtay مدن عمر وحن ognahay Soomaaliya xaaladeedina maanta isbedeshay xalay toolay wali hadaanayna hambalyo lagu jiro farxad iyo tamashteen markaas arimahaas bal maxaad ka waran kartaa sidoo u aragtaa madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan horta ugu horeyn rabaa inaan waxaan uga hambaleeyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan dhaahdo Ilaahay garabkaaga ha galo waxaan rajeynayaa in Ilaahay mataqaanaa uu ku dhabiyo xilka lagu magacaabay xilku waa xil culus weey waxaana loo baahan yahay waxaan aaminsanahay inaad raganimadeedii leedahay inaad aftahanimadeedii leedahay inaad siyaasadeedii leedahay inaad mataqaanaa ku haboon tahayna madaxweynihii maanta ummadda Soomaaliyeed ee Raas Gamboni ilaa ku nool mataqaanaa waxaan ku raas law yaacdo ay tabisay iyaga oo aan aqoonin media ka bartay isla marhaantaana nin walba mataqaanaa nin kaxta beerta qodaya ama kaynta jooga uu lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ilaahay soo saaro marka waan kugu hambalyeynaa Xasan Sheekh iyo intii kale mataqaanaa la mataqaanaa hawsha ku tartanka la gashay iyo ka talaasusayna waygana waan hambalyeynaa aad oo maasan tahay runtii waan ugu hambalyeynaa Ilaahayna ku asturo xilkaas uu qaaday isagana doortay laakiin Ilaahay ku asturo waa hawl aad u weyn baa runtii sugaysaa إلهي أود بيرايو. مدن الدكسي كسر دو خلك تلافكا. ما خشن هذا. واقو مقال ناسف عن. كسر دو. أنا هم بليني ها. مدحويلا أسو. مدحويلا فرماجو. أورنتي عاوة. أنا قاعد نوقف مين ما خش عمر. سفي عم بالقو مقلا مدن الدكسي. أعد نوقف حي. doorashada madaxweyne Farmaajo runtii wax aan haddaan reer awdalnayn suugaynay in si dimuqraadiyada baarlamaanka Soomaaliya uu maanta u doorto anigoo matalaya Awdal State si fiican baan runtii aad u farxay caawa ilaahayna waxaan u rajeynayaa inuu hawsha la hidgalo waxaan kaloo u mahadnaqayaa baarlamaanka Soomaaliya ee maanta sida fiican mudane dugsiga aan ka dhex galo adiga haysta hadalka wali waxaad u malaysaa doorashadii dhacday inay ku dhacday si xalaal ah aad si fiican u dhacday waxaan anigu ku kalsoonaa runtii waxaan uga baranay amba adduunka uga barteen Soomaaliya inayna waliga saddexdii jeer amba afartii jeer ayna soo dhaaftay 24 sano ugu dambeysay inayna doorasho xalaal ka dhicin inay musuqmaasuq iyo failed state ahayd hadda waa maxay rajadaad ka qabtid iyo farxadan faraha badan ka soo baxaysa runtii waxa anigu aad marka horeba aan ku kalsoonaa labada nin ee reer awdala Dr. Bailey oo ogaay inuu ahaa nin Soomaalinimo ay ka muuqato iyo Dr. Cabdi Ismaaciil Professor Cabdi Ismaaciil oo labada nin baan ogahay anigu inay yihiin Soomaali run ah inay si u hogaamin karaan taasi ma ahayn macnaheedu they couldn't control it. They shouldn't. But waxaan ogahay inay sidii ay wanaagsaneyd isku dayeen iyaguna maanta meel fiican ay halkaa gaarsiiyeen waxaan kaloon ogahay madaxweynaha Jawaari baarlamaanka Soomaaliya
oo isaguna soomaali dhaba runtii saddexdaasoo run isku is-adeegtay ayaa ka dhaliyey maanta doorashada taariikhda leh inay ku ay hirgasho weliba in particular Dr. Bailey Soomaali kama qarsooma inuu yahay nin Soomaali dhaba daacada soo Cabdi Ismaaciil Samatar Soomaalidii maanta way aragtay hoggaankoodina way ogolaadeen anigoonan ku faanayn Awdal State laakiin waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed reer Awdal inay weligoodba u joogeen midnimada Soomaalida عمر ورنتي waxaan ogsoonahay 1993 gobolada waqooyiin ambahan bay yiraahdeen maamulka Somaliland inay runtii waqtigaasi iyadoo colaadii iyo dagaaladii foosha xumaa ee Soomaalida ka dhaxeeyay iyadoo socdo waqtigaas inay reer Awdal culmoodiin aqoonyaan iyo dhalinyaraba inay ka qayb qaadatay sidii ay markaa dadka isku keen lahaayeen hoobkan loo dhigi lahaa dadkuna markaa ay u samaysan lahaayeen nabad galiyo ay ku wada noolaadaan hadda waxaan ogsoonahay maanta ay tahay 2017kii waxaan ogsoonahay runtii inay reer Awdal ay ka qayb qaateen sidii Soomaaliya ay uga bedeli lahaayeen xaaladii hore dhici jiray doorashada ahaa ama sidii u dhici jireen arrinkaas maxaad sidoo aragtaa bismillahir rahmaanir rahiim arrintaasi waxaan u arkaa arrin guula waxaan aaminsanahay eliidka ka qayb qaatay hawshaasi ugu horeeyo Dr. maxaan ku dhahay Bailey iyo Professor maxaan ku dhahay Cabdi Ismaaciil Samatar iyo intii kale hawsha la waday Professor Jawaari iyo intii kale waxaan leeyahay waa hawl maanta hawshoodii baa taagneed si fiican bayna hawshaasi uga midho dhaliyeen waxayna doorteen hogaamiyihii ay fulayeen waxaan leeyahay dadka ku nool waqooyigu aqoonyahan iyo dhalinyaro iyo odayo cuqaalba waxay dadabada u aaseen 1993kii waqooyiga Soomaaliya tiyo hubka la isku haysto oo dhalinyarada hubka laga dhigay waxaana lagu nabadeeyay dadka waqooyiga nabad ku wada noolaadaan maantana sidoo kale halka markaa waxa lagu doortay maxaa loo naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baa lagu doortay oo madaxweynaha waxa looga dhigay Jamhuuriyadda Soomaaliland la baxday maantana waxa halka lagu doortay oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Dr. Bailey iyo intii hoggaanka hawsha waday reer Awdal ka socotayba iyo ummadii Soomaaliyeedba ay u dhigeen maxaan ku dhahday salka u dhigeen in lagu doorto maxaan ku dhahday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan leeyahay reer Awdal sharaf ay u tahay inay mar walba raadiyaan ummadda Soomaaliyeed in dhiig dhexmarin inay dhibaato ku dhicin ummadda Soomaaliyeed ay mid noqoto marka waxaan leeyahay waa mar labaad oo ummadda dadka reer Awdal ay guul ka soo hooyeen wada heshiisiintii iyo nabadintii Soomaalida iyo dawladinta Soomaalidaba waana ku amaanaya eliidka hawsha ka qayb qaatay aad oo maasanta taariikhdiidaas qorta in yara ku celiyo wuxuu u baahan yihiin dhalinyarada reer Awdal gaar ahaan runtii dhalinyarada markaan la hadlayno dhalinyarada inay runtii taariikhda ay gartaan ogaadaan ayna wax laga qorana waxaan u ahaado wax ku oola waa arrin aad u muhiima arrintaas yaan la maagin aad oo maasanta Cumar arrinkaas maanta uu madaxweyne Farmaajo xilka hayo sidee bay Soomaalida isugu iman kartaa ama dalka Soomaaliya sidee uu uga dhigi karaa mid iswada haysta oo cadaalad iyo midnimo iyo wadajir ku wada nool waxaan ogsoonahay su'aasha labadan ku raacinayo wadamada jaarka ee East Africa anagoo ka nimaadna wadamada Westernska intaan u teginba waxay runtii East Africa wadamada jaarka ay Soomaaliya ku ilaaliyaan ayna kula jiraan luga fara badan iyo toosashba ku iftiimiyaan marka sidee bay arrintaasi ahaan mid ay Soomaaliya iyadu dib isku soo laabato ay ka tashato aayahooda iyadoo aan cidna daba fadhiisan Ethiopia Kenya iyo qolo kale ama Uganda aynan soo faragelin danaha gaarka oo ay Soomaaliya deeqa waa runtaa weeye haddaan ku horeeyo su-aasha sidee dadka Soomaaliyeed ay mid u noqonayaan oo midoobi karaan Soomaali maanta anigu waxaan aaminsanahay hub iskuma haysato dhibaatana iskuma hayso Soomaali waxa dhibaato waa faraha wadamada safka hore iyo beesha caalamka ee faraha ku haysa taa waxaan kaga maarmi karnaa waxa weeye dadka waxaan ku raadayay ku nool ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba maanta waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciddii dan male ninka ku nool Raas Kaamboon iyo ninka ku nool Lawiya Caddo waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadiisa dadku way dhageysteen iyo qaabka uu rabay inuu mataqaana dalka ku maamulo
ummadda soomaaliyeedna waa madaxweynaha ka dhur sugasay inay ummadda soomaaliyeed usoo baxo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed in gogol loogu baaqo laysgacan qaado la walaaleeyo loo dhiso ciidankii hanan lahaa nabadga dalkan weeyi wadamada jaarka haddaan galo wadamada safka hore ee jaarka siiba mataqaanaa kuwa ku meersan ama xadka inala leh ama kuwa mataqaanaa bariga afrika ka jiraba kuwaasi waa kuwa aan marnaba aan doonayn ummadda soomaaliyeed mid noqoto waa kuwa aan doonayn mar walba ummadda soomaaliyeed ka faa'iideystaan danahooda ka faa'iideystaan waxaan ognahay waxaa mashaariic lagu cuno ummadda soomaaliyeed lagu cuno Addis Ababa iyo Nairobi iyo mataqaanaa iyo Kampala sidee bay kala farqi karaan iyagoo dantooda ku jirto waxaanu kala bixi karnaa inagu haddaynu mid noqono ummadda soomaaliyeed ay mid noqoto cid kasoo dhexgeli kartaa ma jirto farmaajona waa siyaasadda lagu doortay waxa weeye inuu ummadda soomaaliyeed mid u noqdo midna ka dhigo kana saaro mataqaanaa shuushka ku jira oo mataqaanaa gacmaha shisheeye cumar wali heerka maanu gaarin waxaan malaynayaa wadamada westerska taa wali ku shaqeeya Soomaaliya wali qabiil bay ku shaqeysaa farmaajona waa nin reer ka soo jeeda marka maadaama uu nin isna reer ka soo jeeda yahay waayo maanu gaarin waqtigii aan ka shaqeynay maskaxdeena aan maalinay aan aqoonta iyo kartida iyo raganimada iyo qofku wax qabadkiisa dadka lagu dooran jiray arshaxankaas wali maanu gaarin marka waxaad moodaa wali inay arinku wali qabiil uu hoosta kaga jiro uu qabiil ku maran yahay markaas sidee baad adiga oo nin reer awdal ah oo reer awdalna jufa ka sii ah sidee baa nin reerkaas aad u taageeraysaa waxaan u taageerayaa waxaan aaminsanahay dowladnimada iyo mataqaanaa waxaan la yidhaha dowladnimadu inay tahay ninka ku nool Kismaayo ninka ku nool Looyacdo ninka ku nool mataqaanaa Garowe iyo Hargeysa ku nool iyo Baydhabo ku nool iyo dhammaan 18 gobol ku nool oo la isku danahooga la isku daray yaa dowladnimada la yiraahdaa marka dowladnimadu waxay ku jirtaa danaha dadkaas oo la isku wada geeyay dowladnimada noqonaya marka aniga dantaydu waxay ku jirtaa danaha ummadaas ku dhex jirtaa isaga madaxweynaha dantiisa waxay ku jirtaa inta ku nool 18 kuwan inaba talay markaas ay u garan laayeen waxaan ogsoonahay baarlamaanka Soomaaliya raggan maanta fadhiya inay maalin dhaweed ka cabanayeen gaar ahaan dadka waqooyi ka soo jeeda amba ha noqdaan beesha dhexe amba ha noqdaan beelaha kale inay dhahayeen anagu waa laabanana ay markaas ay u arkayaan nacamti inay waabis tahay oo kale oo nacamti dowladnimadiiba inay dadku keergareyneen oo waxaad moodaysaa inuu wuxuuba yahay wax la isku waabinayo marka dadkani haddiiba arkeenba nacamti ay garaneen dadnimada iyo dhulnimada iyo dowladnimadu waxay tahay sidee bay dadku isugu iman karaan waxay isugu iman karaan dowladnimadu waxa weeye dadka waxa tusa hoggaanka tusa haddii ay dadku hoggaan helaan hoggaankaasi wuxuu u ifiyaa dadka meel lagu soo hirto ayuu noqdaa laakiin hadduu hoggaanku xumaado reeway wuxuu oranaya waan ka baxnay meesha walba waxay leedahay maamul goboleed ma samaysan waan ka baxnay dowladnimada ka baxnay walba laakiin haddii hoggaan lagu soo hirto oo ummadda jiro hoggaankaasi ayaa lagu hiranayaa kaasa ummadda horkacaya qof diidanna male waxaan aaminsanahay maanta damaashaadka ka dhacaya Muqdisho inuu meel ka dhacayn caalamka oo dhan laga damaashaadaya waxaan ognahay Sheekh Shariif waxa ka horeeyay mudane Xasan Sheekh Maxamuud baa ka horeeyay mataqaanaa oo 4 sano ka hor mataqaanaa ku guuleystay damaashaadka maanta dhacaya ma dhacayn muxuu dhici waayay waayo hoggaan fiican buu ahayn Sheekh Shariif baa ka horeeyay Sheekh Shariif iyo maxaan ku radaa in kastoo maanta aanan lahayn haddana waxay aaminsanaayeen inay mataqaanaa xukumaan ummadda Soomaaliyeed ku nool koonfurta ku nool ama maxaan ku radaa magaalada Muqdisho ayagana waxigeeda laakiin farmaasho waxa looga fadhiyaa waxa weeye waa nin aaminsan inuu xukumo min Raas Kamboni ilaa iyo mataqaanaa Looyacdo dadka ummadda Soomaaliyeed iyo meel kastoo qof Soomaali ku nool yahayba isaga la weydiinayaa waxaanu aaminsan yahay inuu ninkaasi yahay madaxweyne u yahay dadkaasi marka haddii hoggaan fiican la helo ummaduna way isku imanaysaa waana la israacayaa okay aad baad maasan tahay runtii Cumarow waxaan ogsoonahay gobolada waqooyi galbeed aan iraado amba maamulka Somaliland runtii waxaad aragtaa inuu Soomaaliya inteedii kala ka go'an yahay uu leeyahay anuu waxaan la soo laabanayaa dowladnimadii 60kii gool isku taageegii taas lafteeda siyaabo fara badan iyo caqabado fara badan ayaa hadda u suurto geli karin dad badan ayaan aaminsanayn inay taasi way dhici kartaa ahayn marka sidee bay waxaan ognahay Xasan Sheekh iyo dowladdii kasii horeysaba inay wada hadal fara badan kula jirtay dowladda Soomaaliland wada hadalkaas oo runtii mid daba dheer ahaa oo Turkiga ka bilaamay oo Ingiriisku ka bilaamay oo Turkiga ku dambeeyay haddana Ethiopia balan qaaday siyaad u aragtaa markaas inay dowladda uu federaalka uu mudane farmaajo hogaaminayo xagee bay arrinkaa ka sii qaadi karaan amba sidee u aragtaa in markaas waxaan taas ku suurto gali karto inuu wada hadalka xay ka socon karo iyo inay Soomaaliland ay midnimadoodii la soo laaban karto
waa su-aal fiican weeyi arrimaha ka dhexeeya soomaaliya iyo mataqaanaa iyo waqooyiga soomaaliya ma foga anu waxaan aaminsanay inaan fogeyn laakiin dadkii ku habboonaa hawshaasi ayaan gacanta ku qaban maalinta ay dhacdo in dadkii ku habboonaa arrintaasi ay gacanta ku qabtaan faraha laga geliyo waqooyiga koonfur waxba iskuma haystaan dhibaato dhex taalana ma jirto marka waxaa la sugayaa un farmaajo sida uu maamulo waxaan rajaynayna haddii ilaha yidhaahdo inuu dadkii ku habboonaa ee hawshaasi dhinaandhirin lahaa ee meel miiska si fiican u keeni lahaa inuu farmaajo soo saari doonaan rajaynayna haddii ilaha wax weyna maaha dib aan ugu laabtay waxaan ogaa shirkii ugu dambeeya turkiya ka dhacay 2 sano ka hor waxaa shirkaasi tegay oo meesha iskugu yimid rag ka soo wada jeeda beesha dhexe isla markaasna waxaa shirka xagga kale soo fadhiyay runtii rag ka soo wada jeeda beesha hawiye markaa ma la soron karaa wada hadalka Soomaaliya amba midnimada Soomaaliya u dhaxeeya waxa weeyaan mid laba reer ka wada hadlayaan waxyaabaha fashiliyay ba kamid tahay aan kuleeyahay raggii dadkii ku habboonaa baan gacanta ku qaban taasaa kamid ah يعني إن رجس كبيرة وقوية كسرعة عيد هذا صواب واحد مثلنا وقوية وحيابها شركة فشيلة كم ده ما أنت واحد عم هاي فرماتشو إنه يهاي إنه قوية هنا أو ما تقعنا في هالسن تذكر وقوية كنا يد لهانشها وقوية قصة لو ده ليس لو ولا دقيقة هني قرني إنه يهاي هدي ومدر الدولة يوم ما صار إلا هلنا وقوية لا ضد لقى ربنا وحوية تذكر وقوية كنا وهاي داعات كتاعين كداعات كتاعي باللو بهاي قعنت اللو قليو مركان كله يهاي تذكر بنا قعنت وقليو وحويان ضد سكوب بيلا أو بيل كسر وده مثله قوية عمره وحنا وصلنا هنا أدوغو تاينين أود الاستيدا كنا صور جديد عم بقى قبضة فرا بدل لكويسين مملكة سوماليلاند ما دام أريموسا وسعودين المدة فرا بدل رنتي هذا ديار موت هاي وحنا وصلنا خاتمة إن ماشي جوتي كسر دربتي عقبضة بدلنا كوي مادين taasi ahayn maanta doodaan gali karno haddana aynu noo banaanayn doodaan ka hadli karnayn maadaama uuna joogin mudane matalaya amba kasoo jeeda maamulka Khartoum State laakiin Awdal State maxaa sababi waayay inay wada hadal la wada yeesho dadka waqooyiga ku nool inay wada hadlaan ay wada fadhiistaan cid diidi kartaa ma jirto hadday noqoto Awdal State iyo hadday noqoto Khartoum State iyo hadday noqoto beesha dhexaba waxa weeyaan dadka waqooyiga ku nool wada fadhiistaan وتكينيسا إن لا فريستو أما الله هرادة حلالة أو مثلا وقوي كصوماليا أو صومالي يو محن كنا كونفري وقوي وكوشيان ويا هذا رتي كويستا waxaan ognahay inay muddo dhaweyd laba dhalinyaro runtii oo siyaasiina walibana uu labada nin bay yihiin laba nin oo xidal haya mid waa golaha deegaanka xildhibaanka golaha deegaanka laga soo doortay degmada Boorama ninka kalena waxa weeyaan afhayeenka ururka afhayeenka xisbiga wadani ee u fadhiya gobolka Awdal markaas xarig waa la xidhay labadii ninba waa la xidhay sababaha lagu xidhay labada nin ma waxa qaba ay ku gudbeen ma waxay ka gudbeen xaqi ma waxay ku gudbeen nacamta xaq daro ay sameeyeen oo lagu xidhay mise waxa lagu xidhay arrimo si kala deeqo waa si wanaagsan nimankaasi labadaba anigu si gaar ah oo saaxiib u nahay oo raggan isnaqaano weey oo isku ciidan ahaan jirnay maxamed mudane dheerayste gudoomiyaha oo ahaa gudoomiyaha ku-xigeenkii hore ee deegaanka maxaan ku rahaa degmada Boorama haddana waa xildhibaan oo xilka u haya cabdikariin maal waa isaguna waa nin mataqaanaa ururka mucaaradka aanu aaminsan laakiin ururka mucaaradka wadani buu wakiil uga yahay gudoomiyaha gobolkaasi Awdal waa laba nin oo xilal ka haya marka loo eego maxaan ku maamulka meesha ka jira sidee ku dhici kartaa nin xil haya oo waliba xildhibaan ah oo golo deegaan ah in la xidho waa la xidhayaa deeqo waa la xidhayaa waxa weeyaan meesha waxa ka jira nidaam iyo kala dambeyn kama jirto meesha waxa ka jira ninka sharciguna garanayn ma sharcigu ku gudbay waxaan ku leeyahay deeqo waxa la freedom of speech meesha kama jiro waxa xuquuq qofku uu leeyahay baa jirto asaasiya xuquuqda asaasiga ee qofku leeyahay waxa weeye inuu qofku codkiisa dhiiban karo hadli karo gobolka oo dadka ku nool dad hadli kara oo loo ogol yahay inay xuquuqdooda iyo codkooda dhiibtaan maaha adoo noo soo yaro gaabinaya bal dheeraya maxaa lagu xidhay sababta lagu xidhay dheeraya maxay tahay dheerayste waan daawanay clipkii uu duubay wuxuuna ka hadlay waxa uu sheegay in mataqaanaa maamulka Hargeysa uu yahay maamul ay beele leedahay isla mar ahaantaana isagoo waliba xildhibaan u ah una xaqi uu ku lahaa xuquuqdii uu ku lahaa dadka soo doortay una ku haysan isla mar ahaantaasina wuxuu yiri haddii sidaa tahay waxaana nooga khayr badan inaanu mataqaanaa dowladda Ethiopia dowladda Ethiopia ay nooga access badan yihiin oo hadday abaari dhacdo hadday dhibaato dhacdo gurmadkoogu nooga hor yimaado marka laga hadlayo Somaliland la sheegayo marka taasa lagu xidhay dheerayste cabdikariin maal waxa lagu xidhay
wuxuu sheegay isaguna inuu u barordiiqayo dadkii ay xasuuqeen SNM iyo mataqaanaa dhargigii Ethiopia 1991 bishii 4 February taasuu ka hadlay dadkuna waxa weeyaan xaq waxay u leeyihiin oo inay xusi karaan dadkoogii la xasuuqay xusi karaan inay cid taariikhdooda qori karaan haddii la yidhaahdo taariikhda SNM la qoraya taariikhdii ummadaha kalena waa la baabinaya de wax dhici kara maaha taalaan dhisayaa buu ninkaas yiri Cabdikariin waxa ku xidhan yahay taalo ma dhisi kartid hargeysa boqol taala ka dhisan ma cid baa isweydiisay waxa kala sameeyay qof isweydiiyay ma jiro taalo ka dhisan hargeysa laakiin taalada laga dhisay gobolka Awdal waxay noqotay taalo la doo hargeysa dhisto horey u sheegeen waxay dhahan taalada nabadda ka dhisnaa waxaan ku raayay Sheekh Cali Jawhar annaga baabinay oo kamid ahayd mataqaanaa dhalinyaradii Awdal State ee mataqaanaa xaq udirka ahayd ayaa baabisay habeen baa la qaaday maantana waxa doonayaa inuu waxa iyagu rabaan ay ka fuliyaan gobolka Awdal taasina ma yeelano waxaan leeyahay nimankaasi xarigu guushu keenaa halgan baa waa halgan weeyaan xaqiina cid uga daba fadhiisanina waxaad xaq dadka kale xaq u leeyihiin xildhibaan dheeraysta iyo xildhibaanada kale ee daga doortay golaha deegaanka waxaan leeyahay xuquuqda ay dadkiina ugu leeyihiin xaqa aad u leedihiin inaad hadashaan xaqa aad u leedihiin inaad codkiina gudbisaan cid uga daba fadhiisanina jeelkana rag baa loo sameeyey waad ka soo bixi doontaan ha ka biqina cid ha ka biqina hadafkiina iyo hadalkiina ha caddaa saa maanta u cadi ha u caddaado aad iyo aad waa mahadsantahay cumar runtii waan ka gudbi doonaa sheekadana waan soo gaabinaa programka waan soo xidhanaa waqtigii baa gaadhay waxaan rabnaa inaad hal u dirtid madaxweynaha cusub maxaad oran lahayd aad goobaabin aad u diri lahayd ama bulshooyinta shacabka Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan rabaa halkan uga diro tahniyad uga diro madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay garabkaaga Ilaahay galo anagu waxaan aaminsanahay haddaan nahay shacabka reer Awdal State inaad tahay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed isku keeni lahaa ee midayn lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba garabkaaga inuu taaganahay ilaahayna ku dhabyarayo xilka maanta aad qaaday waa xil culus weey hawl badan baa ka hortaala qodxa badan baa ka hor yaala waxa ka hor yaala mataqaanaa dhibaatooyin fara badan oo carqalada ah oo mataqaanaa arkano oo ay ka yihiin marka dawladaha jaarka waxaas oo dhanba waxaan leenahay waxaan kaga gudbi karnaa oo aad kaga gudbi kartaa adiga oo talo wadaag sameeya ummadda Soomaaliyeedna meel isku keena oo ka shaqeeya mataqaanaa amaankooga oo u dhisa ciidan adag oo mataqaanaa waxaan ku raad difaaca dalka ka qayb qaata iyo adiga oo maamul adag sameeya oo mataqaanaa isku kalsoon oo kalsooni ku shaqeeya waxaan kusoo gabagabanayaa maxaan ku radaa hadduu siliciyo dhib gaadho sareeda hadday ku warto Soomaaliya Soomaali baa le celina waa inooyo khamiisa dambe